waxaa noo socday filimkii taxanaha ahaa ee Peaky Blinders. Saxaabta haddaan soo daawan muuqaalkii hore ma fahmaysid filimka. Si aad u fahanto filimka soo daawo muuqaalkii hore oo waxaa korka ku soo dhigaya kaadhkaas. Haddii kalena description-ka ayaan kuu soo dhigay ka daawo. Filimkeena qaybtiisa hore waxay nagu joogtay Grace oo korka kala socotay Thomas. Maalinkii xigay Thomas iyo kooxdiisa waxay imanayaan suuqa madow ee lagu iibiyo fardaha. Ayagana waxay baayacayaan faras cad uu rabay in Thomas uu gato. Laakiin isla markiiba kooxda kale waxay bilaabayeen inay aflagaadeeyaan Thomas eedadii. Ayagana way ka cadhoonayaan hadalka xun ay ku leeyihiin eedadood. Thomasna waxa uu bilaabayaa inuu la dagaalamo kooxdii kale. Ayagana dhammaantood waxaa koofiyadaha ugu jiray sakiimo. Thomas iyo kooxdiisana waxay bilaabayeen in ayaga ay sakiimaha ku jarjaraan. Kooxda kalena waxaa wejiga looga gistay dhaawacyo xun. Isla markaana waxaan arkaynaa in Colonel Campbell iyo ciidankiisa ay soo galeen magaalada. Ayagana waxay rabaan in guri kasta ay baadhaan si ay uga raadiyaan hubkii la soo xaday. Isla markaana waxaan ogaanaynaa in Ada ay la joogto Freddy. Freddyna isla markiiba waxa uu ogaanayay in magaalada ay soo galeen ciidan. Intaa kadibna Freddy waxa uu bilaabayay inuu booliska ka dhuunto. Laakiin Freddy muu awoodin in kaligeed uu ka tago. Sidaa darteed Freddy iyo Adaba waxay bilaabayeen inay ka baxaan guriga xaggiisa dambe. Ayagana waxay maaraynayeen inay ka dhuuntaan booliska. Si lama filaana waxaan arkaynaa in qolkii Ada iyo Freddy ay ku jireen ay u soo galeen ciidan. Ayagana waxay bilaabayeen in qolka ay ka raadiyaan wax cadeen ah. Laakiin askariga waxa uu arkayay in warqad dhulka ay taalo. Intaa kadibna askariga waxa uu soo qaadayaa warqadii dhulka taalay. Colonel Campbellna waxa uu tagayaa Aunt Polly. Waxaanu weydiinayaa wax ku saabsan hubkii la soo xaday. Sidoo kale Colonel Campbell waxa uu ka eedeynaya in ayaga ay haystaan hubkii la soo xaday. Laakiin Polly way inkiraysaa waxaana u sheegaysaa in hubka aysan waxba kala socon. Sidoo kale waxay u sheegaysaa in ficilkaas oo kale aanu ka suurtoobin Peaky Blinders. Colonel Campbellna waxa uu sheegay in maalinka ay ku cadaato uu dhammaantood xidhxidhi doono. Waxaana uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku soo qaban doono hubkii la xaday. Intaa kadibna Colonel Campbell waa uu iskaga tegayaa. Isla markaana waxaan arkaynaa in magaalada ay ku soo noqdeen Thomas iyo kooxdiisa. Isla markiibana Thomas waxa uu fahmayaa in magaalada ay yimaadeen ciidan. Intaa kadibna qoyska dhammaantood waxaa yeelanaya shir. Pollyna waxay u sheegaysaa in booliska ay bilaabeen in dabagal badan ay ku sameeyaan Peaky Blinders. Ayadana waxay u sheegaysaa in ganacsiyadooda ay sii wadaan. Haddii ganacsigooda ay sii wadi waayaanna ay ka tegiso cabsida dadka ay ka qabaan Peaky Blinders. Intaa kadibna waxaan arkaynaa in Polly ay la kulantay Thomas. Thomasna waxa uu Polly u sheegayaa inuu u tagayo Colonel Campbell, kaas oo aan isaga oo warkaan soo galay magaalada. Waxaanu Polly u sheegayaa in uu khaldan yahay Colonel Campbell. Sidoo kale Thomas waxa uu Polly u sheegayaa in aanu ku hayn wax cadeen ah, taas oo uu ku soo gali karo magaalada. Waxaanu u sheegayaa in Colonel Campbell uu ugu tagayo meel ka baxsan magaalada si uu wax uga weydiiyo sababta uu soo galay magaalada. Ayadana waxay u sheegaysaa in tallaabadiisa ay ku raacsan tahay. Isla habeenkii Thomas waxa uu dadka dhammaantood ku wargelinaya in ay soo qaadaan sawirka boqorka England. Ayagana dhammaantood waxa uu sheegaya inay gubaan sawirka boqorka England calashaan si uga caddeeyeen ayaga ay ka taliyaan magaalada, aanay ka talin boqorka iyo ciidankiisaba. Intaa kadibna ayaga dhammaantood waxay sawirka boqorka England ku dhex gubayaan magaalada dhexdeeda. Mar kale waxaan arkaynaa in Colonel Campbell uu soo wacay Winston, kaas oo ogaaday in magaalada dhexdeeda lagu gubay sawirka boqorka. Waxaanu Colonel Campbell u sheegay in aanu magaalada mar labaad ku noqon, si ficilkaas oo kale aanu magaalada mar labaad ugu soo noqon. Colonelkani waxa uu ogaanayaa in Thomas uu ka awood badan yahay boqorka. Waxaanu ogaanayaa in Thomas aanu si fudud uga guulaysan karin. Habeenkiina waxaan arkaynaa in Polly ay ka shakiday Ada, taas oo ay ka muuqdeen calaamadaha uurka. Pollyna isla markiiba waxay bilaabaysaa in Ada caloosheeda ay taabato. Waxaanay arkaysaa in Ada ay tahay caloosheeda mid weyn. Intaa kadibna Polly waxay bilaabaysaa in si khasab ah ay ugu soo kaxayso dhakhtarka. Intaa kadibna Ada waxaa la keenayaa dhakhtarka. Dhakhtarkana waxa uu caddaynaya in Ada ay leedahay uur. Intaa kadibna Ada way soo baxaysaa. Ayadana way ooyaysaa waxaana u sheegaysaa inay jeceshahay Freddy. Sidoo kale waxay u sheegaysaa inay ka baqayso in Freddy ay dilaan walaalaheed. Laakiin Polly waa ay dejinaysaa. Waxaanay u sheegaysaa in Freddy iyo iyadaba ay isku darayso. Sidoo kale waxay u sheegaysaa inay u samaynayso qoys. Maalinka xigay Thomas waxa uu la kulmayay adeerkii Charlie. Markaasna Thomas waxa uu jeegareen ku sameynayay faraskii uu soo gatay. Charliena waxa uu sheegayaa inuu geeyo hubka meeshii loogu talagalay. Intaa kadib Charlie waxa uu sheegayaa inuu ka baqayo in kooxdii ay la soo dagaalamin ay ku soo qaadaan weerar gaadmo ah. Laakiin Thomas waxba kama soo qaadayo hadalka uu sheegay adeerkii Charlie. Intaa kadibna Thomas waa uu soo baxayaa. In yar kadibna waxa uu arkayaa in faraska uu ka baqayo dabka. Intaa kadibna asaga waxa uu bilaabay in faraska uu la lugeeyo, maadaama uu faraska yahay mid ka baqayo dabka. Isla markaana waxaan arkaynaa in Grace ay tahay mid korka kala socoto Thomas. Ayadana waxay si kasta ugu shubaysaa Thomas biyo calashaan si asaga ula hadla ayada. Intaa kadibna ayada waxay bilaabaysaa inay shukaansato Thomas calashaan si ayada ay uga ogaato meesha uu yaallo hubkii la soo xaday. Thomasna waxa uu ahaa mid ka shakisan ayada. Gracena waxa ay Thomas ka codsanaysaa in sabti walba ay ka heysto baarkiisa. In badan uu Thomas ku adkaynayo waa uu ka ogolaanayaa. Mar kale waxaan arkaynaa in Peaky Blinders ay wadaan shaqadoodii maalinlaha ahayd. Ayagana waxay isku dayeen in ganacsiga sharci darrada ay kor u sii qaadaan. Intaa kadib Polly waxa uu yeeraysaa Thomas. Waxaanay u sheegaysaa in Ada ay leedahay uur. Asagana markuu arrinka ogaado aad ayuu uga cadhoonayaa. Waxaana u tagayaa walaashii Ada. Intaa kadibna waxa uu weydiinayaa cidda iskale uurka. Ayadana waa ay ka diidaysaa. Laakiin Thomas waa uu ku xanaaqaya waxaanu daminayaa sanamadii ay daawanayeen
doonaysay. Kadibna waxa uu si xanaaq leh u weydiinayaa cidda iskale uurka. ayadana waxay u sheegaysaa in uurkan uu leeyahay saaxiibkii Freddy. Thomasna waxa uu ka soo baxayaa isaga oo ka xanaaqsan. Paulina waxay u imanaysaa Thomas, waxayna u sheegaysaa in ganacsigooda uu sii wado, aanu ku mashquulin walaashii Ada. intaa kadibna Pauli waxay si gaar ah ula kulmaysaa Ada. Paulina waxay u soo jeedinaysaa in uurka iska soo xaaqdo, haddii ay iska soo xaaqi weydana ay ku ceeboobi doonto bulshada ay ku dhex jirto. Adana waxay aaminsanayd in uurka uu ku inkarayo Freddy. ayadana waxay ogolaatay hadalka ay u soo jeedisay Pauli. intaa kadibna Ada iyo Pauli waa soo raacayaan, isla markaana Ada waxay si kadis ah u arkaysaa Freddy. ayadana waa ku farxaysaa markay aragto Freddy. Freddyna waxa uu sheegay in wax kasta uu walaalkeed ka soo dhaadhiciyay. sidoo kale Freddy waxa uu sheegay in Thomas uu sheegay in labadoodaba ay ka tagaan magaalada. sidoo kale waxa uu sheegay in Thomas uu ku dhahay qaado cunugaaga, laakiin arrinta la yaab kale ee Ada ka naxsaya in Freddy uu sheegay inaanu qaadanin amarada walaalkeed. asagana waxa uu sheegay in qoys kale uu ka dhex samaysanayo magaalada. intaa kadib maalinka Thomas waxa uu la kulmayaa Colonel Campbell, waxaanu kula kulmayaa meel ka baxsan meelaha ayaga ay ka taliyaan. intaa kadibna Thomas waxa uu soo jeedinayaa Colonel Campbell heshiis, laakiin Colonelka waa uu ka diidaya maadaama uu ayaga ugaarsanayo. intaa kadibna Colonel Campbell waxa uu ku eedeynayaa inuu qarinayo saaxiibkii Freddy. Thomasna waa uu diidaya eedda lagu soo eedeynayo, laakiin Colonelka waxa uu tusayaa warqadii uu ka soo qaaday guriga, taas oo caddaynaysa in Ada ay u leedahay Freddy uur. Thomasna waxa uu Colonel Campbell u sheegay inaanu soo faragashan familkiisa. sidoo kale waxa uu sheegayaa in aanu mar dambe iman baararka uu ku leeyahay magaalada. Colonelkana waxa uu weydiinayaa waxa uu samayn karaa haddii uu yimaado baararkiisa. Thomasna waa uu ka cadhoonayaa, waxaanu u sheegayaa in hubka booliska ay raadinayaan in asaga uu gacanta ku hayo. waxaanu u sheegayaa in haddii familkiisa ama ganacsigiisa uu faraha la soo galo in uu iibinayo hubka. Thomasna waxa uu sheegayaa inaanu soo faragashan familkiisa ama ganacsigiisa, haddii uu soo faragashtana uu iibin doono hubka. intaa kadibna Colonel Campbell waxa uu la kulmaya Grace, waxaanu u sheegayaa in Thomas ay ku abuurto jacayl علشان si ay u ogaadaan meesha uu hubka yaallo. ayadana waa ay ka ogolaanaysaa hadalka uu soo jeediyey Colonel Campbell. intaa kadibna waxaan arkaynaa in Thomas uu ka soo kacay hurdada kadib markii uu maqlay mid ka mid ah shaqaalihiisa oo qaylinaya. asagana waxa uu sheegayaa in faraskii uu soo gatay uu marba sii xumaanayo. isla markiibana Thomas waxa uu imanaya xeradii uu ku jiray faraska. Thomasna waxa uu arkaya in faraska uu xanuunsanayo. asagana waxa uu ka shakiyayaa in ay sixreen nimankii uu ka soo gatay faraska. intaa kadibna Thomas waxa uu faraska ka tooganaya madaxa. intaa kadibna Thomas waxa uu imanaya baarku asaga lahaa. halkaana waxaa joogtay Grace. Gracena waxay bilaabaysaa in Thomas ay u qaadaysa murugo leh علشان si ay uga soo saarto meesha uu hub ka dhigay. ayadana waxay ka faa'iideysanaysaa inta khamriga uu cabiyay Thomas, waxaanay weydiinaysaa su'aalo fara badan oo kala duwan. habeenkii xiga waxaan arkaynaa in Thomas iyo kooxdiisaba ay joogaan baarka. ayagana waxay ka wada hadlayaan waxa ku cusub kooxda. intaa kadibna waxaa baarka soo galaya nin lagu magacaabo Billy. Billyna waa ninka keliya ay ka baqaan Peaky Blinders. intaa kadibna Billy waxa uu weydiinayaa inuu joogo qof lagu magacaabo Thomas Shelby. dadkana waa ay ka aamusayaan, laakiin asaga waxa uu bilaabay inuu si xoog leh u qayliyo. waxaanu dadka weydiinayay meesha uu joogo Thomas. intaa kadibna waxaa soo baxaya Thomas. Thomasna waxa uu dadka dhan u sheegaya in baarka ay ka wada baxaan. Thomas iyo Billyna waxaa maraya wada hadal. intaa kadibna Billy waxa uu ogaanayaa in Thomas uu khiyaamaynayo tartanka fardaha, taas oo ka xanaajisay Billy. Thomasna waxa uu rabaa in shirqool uu dhigo Billy علشان si mar uuna iskaga hor yimaadaan kadibna uu dilo Billy. intaa kadibna Thomas waa uu soo baxayaa, waxaanu imanayaa baarkiisa. halkaana waxaa joogtay Grace. intaa kadibna Thomas waxa uu la kulmayaa laba nin. ayagana waxay kala hadlayeen wax ku saabsan hubkii uu ka soo xaday RSA. waxaanay u sheegeen in hubka dowladaha qaar ay raadinayaan, ayna rabaan in hubka ay gataan. Thomasna markuu ogaaday in dowladaha qaar ay raadinayaan waxa uu bilaabay in hubka intii la siinayo uu ka badiyo, waxaanu ka dhigayaa farjibaar. in badan ay wada hadlayeen kadib waa ay soo baxayaan. waxaanan arkaynaa in Grace ay korka kala socotay labada ninba. intaa kadibna Colonel Campbell waxa uu imanaya nin, asagana waxa uu sheegay in laba nin ay qorsheynayaan in hubka ay ka iibiyaan Ireland. xogtanna Colonel Campbell waxa uu soo gudbiyey Grace. mar kale waxaan arkaynaa in labadii nin mid ka mid ah uu ka soo baxay baarka, isagana waxa uu soo cabay khamri aad u fara badan, waxaanu ku dhacdhacayay wadooyinka. Gracena waxay dabagal ku samaynaysay ninka, laakiin asaga waa uu ogaanayaa in dabagal ay ku samaynaysa Grace. waxaanu qabanayaa Grace, asagana waxa uu weydiinayaa cidda ay u shaqayso, laakiin Grace waa ay diidaysaa inay u sheegto. asagana waxa uu ku qabanayaa baaskoolad, waxaanu u sheegaya inuu dilaya haddii uu sheegi weydo qofka ay u shaqayso, laakiin ayada waa ay ka diidaysaa. ayadana waxay bilaabaysaa inay iska difaacdo, laakiin si lama filaana waxay ku dhufanaysaa baaskooladii uu watay. intaa kadibna ayada waa ay baxsanaysaa. mar kale waxaan arkaynaa in Polly ay la kulantay Thomas. ayadana waxay u sheegaysaa in Freddy uu diiday in magaalada uu ka baxo. Thomasna waa uu ka cadhoonaya hadalka ay u sheegtay Polly. isla markaana waxaan arkaynaa in Grace ay tahay mid naxsan. ayadana waxay markeedii ugu horreysay cabisaa sigaar, waxaana isku dayaysaa inay cabto hal xabo sigaar ah.
intaa kadibna Cornel Campbell waxaa loo sheegay in labadii nin mid ka mid uu dhintay asagana waxaa isweydiinaya qofka dilay mar kale waxaan arkaynaa in Polly ay si qarsoodi ah ula kulantay Freddy waxaanay u sheegtay in ay siin doonto lacag badan ayadana waxay ka codsanaysaa Freddy in magaalada ay ka tagaan asaga iyo Ada laakiin asaga waa uu ka diidaya waxaan uu sheegay in aanu ka tagi karin magaalada intaa kadibna Cornel Campbell waxa uu la kulmaya Grace ayadana waxay u sheegaysaa inay disho labadii nin mid ka mid ah asagana markii uu ogaaday waxa uu weydiinayaa sababta ay u dishay laakiin ayada waxay u sheegaysaa inay istifaacisay Cornelkana waxa uu sheegay in nafteeda ay ilaaliso maadaama asaga uu ka fikirayo amnigeeda intaa kadibna Cornel Campbell waxa uu ku dhiirigelinayaa in shaqada ay sii wado calashaan si ay u ogaadaan meesha uu yaallo hubka maalinka Thomas wuxuu imanayaa suuqa asagana waxa uu rabay in suuqa uu ka gato suudh cusub laakiin waxa uu arkay in suudhkii uu rabay inuu gato inuu iibsaday Billy intaa kadibna Billy markuu arkay in suuqa uu joogo Thomas waxa uu sheegay inuu leeyahay xalfad sidoo kale waxa uu sheegay inuu ka soo qayb galo Thomasna waa uu ka ogolaanaya hadalkiisa Billyna waxa uu sii sheegay inuu soo kaxaysto Grace intaa kadib Thomas marka uu ka yimaado suuqa waxa uu la kulmayaa Outer asagana waxa uu arkay in Outer uu xanaaqsan yahay maadaama uu ogaaday in hubka uu hayo Thomas kaas oo in badan ka qarinaya hubka uu soo xaday Thomas intaa kadibna Thomas waxa uu Outer u sheegay inuu soo iibiyo baar Outerna riyadiisa waxay inuu mar un helo baar waa asaga leeyahay kaas oo uu ku qoran yahay magaciisa Outerna markuu ogaaday in walaalkii uu soo gaday baar waa uu ku farxayaa habeenkiina waxaan arkaynaa in Thomas uu la kulmay mid ka mid ah sirdoonada waddanka kaas oo uu sheegay inuu soo xidhay walaashii Ada maadaama ay ayada hadda ka mid ahayn qoyska Peaky Blinders taas oo raacday Freddy Thomasna markii loo sheegay hadalkaas waxa uu ka baqayaa in walaashii la xidho maadaama ay ayada raacday Freddyna asaga uu yahay dambiile maalinka xigay Thomas waxa uu la kulmayaa Freddyna waxa uu ka cabsanayay in Thomas uu dilo asagana waxa uu Thomas ku hayay baaskoolad intaa kadibna Thomas waxa uu ka tuuraya baaskooladii uu ku hayay Thomasna waxa uu ku qabanaya baaskooladii uu watay waxaan uu sheegay in aanu soo faragashan qoyskiisa maalinka xigay Thomas waxa uu la kulmayaa Grace ayadana waxay weydiinaysaa waxa ka dhaxeeya Freddy iyo asaga laakiin asaga waa uu ka aamusnaa maanu siin wax jawaab ah ayadana waxay weydiinaysaa su'aalo badan oo kala duwan intaa kadib Thomas iyo Grace waxay u soo baxayaan xalfadii uu ku martiqaaday Billy ayagana waxay imaanayaan xalfadii uu ku martiqaaday Billy laakiin waxaan ogaanaynaa in Outer iyo John ay qorsheynayaan in xalfadda dhexdeeda ay ka xadaan lacag intaa kadibna Thomas waxa uu imanayaa xalfadda waxaan arkaynaa in Thomas uu la ciyaarayay Grace in yar kadibna waxaan arkaynaa in Outer iyo John ay xoogayaan lacago ayagana waxay dadka xoog uga qaadayeen lacagii ay wateen intaa kadibna Outer waxa uu lacagta u keenayaa walaalkii Thomas asagana waxa uu tusayaa Billy si uu uga caddeeyo awoodda ay leeyihiin Peaky Blinders wadahadal dheer kadib Thomas iyo Grace waa ay soo baxayaan maalinkaana waxaan ogaanaynaa in Thomas uu qaaday dareen jacayl Grace ayadana ay ku guulaysatay qorshaheedii ahaa in Thomas ay ku abuurto jacayl filimkeena maanta asxaabta seasonka labaad halkaas ayuu ku egyahay hana ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kale channelka subscribe dhahdo si aad ula socotay seasonka saddexaad waa inooya muuqaalkan muuqaalka xiga